asalaamu calaykum daawadayaasheena dunida miidiya kusoo dhowaada muuqaal cusub. nin ganacsada ah oo ilaahay maal fara badan u dhiibay ma ahayn mid leh qoys iyo ilmo toona, laakiin waxa uu lahaa shaqaalo fara badan oo qasrigiisa ka shaqeeya. maalin maalmaha ka mid a shaqaalihiisa ayaa waxa uu isugu yeeray casho. mid kasta oo ka mid a shaqaalihiisa wuxuu hordhigay kitaab qur-aanka kariimka iyo xoogaa maal ah. markii ay cashada ka dhammaadeen ayuu waxa weydiiyey inay doortaan kitaabka qur-aanka kariimka ama lacagta midkood. waxa uu ku bilaabay waardiyihii isagoo ka dalbaday inuu doorto xishood la-aan. waardiyihii waxauu yidhi, waxaan jeclaan lahaa inaan qur-aanka kariimka doorto, laakiin ma garanayo aqrinta, sidaasi daraaddeed waxaan dooranayaa lacagta, iyada ayaana ii faa'iido badan. midkii labaad ayaa waxa weydiiyey waxa uu dooran lahaa. waxa uu yidhi, xaaskayga aad ayay u xanuunsan tahay, waxaana u baahanahay lacagta si aan ugu daweeyo, taasi haddii ay jiri lahayn waxaan dooran lahaa qur-aanka. intaasi kadib waxa uu ka dalbaday kii cunto kariyaha inuu doorto. waxa uu yidhi, anigu waxaan jecelahay aqrinta, laakiin shaqadayda ima saamaxayso waqti badan aan wax ku aqriyo, sidaasi daraaddeed waxaan dooranayaa lacagta. markii saddexdooduba ay ku qaateen sidaasi lacagtii, doorka ayaa waxa uu ku yimid wiil dhalinyaro ah oo qaabilsanaa xanaanaynta xoolaha. ninkii xoolaha faraha badan lahaa ayaa waxa uu ogyahay in wiilkan uu yahay mid faqri ah, islamarkaana uusan haysan wax dhaqaale ah. waxa uu ku yidhi, waan hubaa inaad dooran doontid lacagta si aad ugu gadatid cunto iyo kabo aad ku bedelatid kuwan gogo-ay. waxa uu ugu jawaabay wiilkii, waa sax inay igu adag tahay inaan gato kabo cusub ama aan soo iibsado dooro aan la cuno hooyaday, laakiin waxaan dooranayaa qur-aanka kariimka. sababtoo ah hooyaday waxay igu tidhi, hal kalmad oo ilaahay xaggiisa ayaa ka faa'iido badan dahabka, dhadhankeeduna ka macaan wax kasta. waxa uu qaatay kitaabkii qur-aanka. markii uu furay wuxuu ka helay 2 bashqad. midda koowaad waxaa ku jirta lacag ka badan 10 laab tii ay qaateen shaqaalaha kale. bashqada labaad waxaa ku jirtay dukumiinti muujinaya qayb ka mida lacagta maalqabeenkan inuu dhaxli doono. intaasi kadib ninkii maalqabeenka ahaa ayaa hadlay oo yidhi, qofkii ilaahay wax wanaagsan ka fishaa, ilaahay ma beeniyo rajadiisa. magacaygu waa cabduqaadir qayska.